4, 3. subax wanaagsan dhammaantiinba dadka naga daawanaya barta internetka anigoo ah cabdilxaliim ibraahim rijaal wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa aan idinku wada salaamayaa hadda subaxdii waxay imaraysaa saacaddu 8:10 subaxnimo dhinaca bariga maraykanka dad aad u fara badan ayaa inagula jira barta internetka maanta waxa ay fursad noo noqotay inaanu wareysanayno fanaanad caan ah oo dhalinyar ah oo ka socota kooxda loo yaqaano waayaha cusub oo aad iyo aad loo bartay sanadadii ugu dambeysay koox dhalinyar oo ka hortagay kana heesay mashaakilka ka taagan Soomaaliya ku habsaday oo ay kamid tahay argagixisada oo ay kamid tahay burcad badeeda oo ay kamid tahay mashaakilka Soomaaliya ka taagan ee inagu habsaday intii ugu dambeysay 22 sano ee ugu dambeysay haddaba inta aynan u gudagelin barnaamijkeena waxaan marka hore tacsiyo tiiraaniyo la u diraynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadkii ay ka geeriyoodeen eheladoodii iyo qaaribkoodiiba dagaalkii maalintii dhaweeto weerarkii lagu qaaday xaq darrada ahaa magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen dad aad u fara badan dhaawac weyn oo ka soo gaaray iyadoo oo ay kooxda al-shabaab ku weerartay dad aad u fara badan meeshaasi kooxdaasi oo iska diidan nabadda horumarka iyo qorax soo baxa Soomaaliya maanta u iftiimay marka taasi waxay naga tahay tacsi aan u dirayno ummadaasi haddaba intaynan falis wareysan oo ku sugan xarunta safaaradda aan ku leenahay magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya waxa aan marka hore jecelahay in aan idin soo gudbino ama aan idin daawadsiino video yar oo aan ka soo duubnay oon isku soo xullay markaasi waxaan rabaa intaanan u gudagelin oo aanan wareysan fanaanada dad aad u fara badan ay nagula jiraan barta internetka aan soo gudbiyo markaasi videohaasi nala yara daawada marka hore doonayaa inaan arko Soomaaliya qoraxda soo baxday waxaan kaloo leeyahay ummadda Soomaaliyeed taageera aad baad u mahadsantihiin mar labaad bayaan ku soo laabanay waxaan soo dhaweynaynaa dadka faraha badan leh ee nagula jira internetka falis waan ku soo dhaweynayaa marka hore waxaan ku leeyahay ku soo dhawo barnaamijka iyaga kooxda xiriirka elektarooniga wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka falis marka hore waxa aan noo sheegtaa maandaweyto waxa aad ku tagteen magaalada Muqdisho adiga iyo kooxda waayaha cusubba idinkoo ka dhigaya fan masraxiyadeed aad u ballaaran oo ay dadku aad ugu raaxaysteen oo markii ugu horeysay laga dhigo in ka badan 22 sanadood kulanka maxaad kala kulantay wadankii hooye markaad ku laabatay oo aan filayay in ahayd markii ugu horeysay aad ku noqoto Soomaaliya khadkii waan soo laabtay hakadkaasi idinkoo raali naga ah su-aasha falis kaaga timid cabdi oo khadka nagula jira barta internetka waxay ahayd
dhibaatooyin badan ayaa soo waajahday hooyooyinka iyo caruurta sidee baad u aragtay markaad muqdisho tagtay maxaad se dareentay runtii horta waxaan dhihi lahaa xuquuqda dumarka in loo doodo xuquuqdooda la siiyo lana caawiyo isla markaasna la dhiirigeliyo aad baad u mahadsan tahay falis su-aaluhu hadda way iska soo daba dhacayaan dadka faraha badan leh ee nagula jira barta internetka su-aasha labaad waxa ay ka socotaa maxamed xasan wuxuu yidhi maxamed anigu waxaan weydiin lahaa buu yidhi walaashayda falis magaalada muqdisho barnaamijka ay ka wadaan ay ka wadi doonaan sidee buu u socon doonaa mustaqbalka ma sii soconaya inuu si wanaagsan noogu socon doono haddaba guul buu noogu soo dhamaaday bartaasna aan kasii wadi doono si wanaagsanna uu noogu dhammaan doono insha allah aad baad u mahadsan tahay falis su-aashan aniga iga socotaa falis oo ah fanaan walba runtii markii uu yaraa ayay waxaan ay ku barbaaray oo ay ku soo kordhay fankan iyo mawhibada uu ilaahay siiyey marka goormaad aad dareentay inaad heesaha jeclaatay oo aad fanka heesaha aad heesi kartid goorma ay ahayd da'daadu imsay ahayd horta markii aan fanka bilaabayay aad baan u yaraa waa markaan jeclaa aan kaaga wadaa aad baan u yaraa fanka weligay waa jeclaa balse waxaa aad iigu sii dhiirigeliyay markaan arkay wadankayga hooyo inuu u baahan yahay dhiirigelin dadka in la wacyigeliyo oo weliba looga dhaadhiciyo si walba qof walba taalantigiisa uu uga dhaadhicin karaa ummadda Soomaaliyeed maxaan ku dhahay dhibaatada jirto taas la aligeed waxaan aan dareemay inaan taalanti u leeyahay inaan codkayga ummadda Soomaaliyeed ku wacyigelin karo ama aan uga dhaadhicin karo nabadda see tahay aad baad u mahadsan tahay falis runtii dad aad u fara badan oo aan inta badan kala soconno barta internetka aad ku leedahay facebooka oo daafaha adduunka ku kala nool ayaa jira su-aalkan kuu socota oo ah maxaad siin lahayd talo dadka raba inay ku darsamaan oo ay burbur iyo xumaan geystaan weliba dhalinyarta la isticmaalayo inkastoo hadda fatradii ugu dambeysay ama waqtiyadii ugu dambeysay xitaa gabdhaha Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed la adeegsaday kuwa maxaad kula talin lahayd talo siin lahayd maanta falis waxaan kula talin lahaa waxyaabo ay ku jiraan inay ka waantoobaan wadankooda ay wax u qabtaan maxaan ku dhahayay qof walbana taalantigu uu leeyahay dhulkiisa hooyo uu wax ugu qabto aad baad u mahadsan tahay falis waxaa jirtay su-aal kale oo iyaduna nooga timid dad ku weydiinaya waxaa jirtay in marmarka qaarkood cagajuglayn iyo hanjabaad ay idinka timaado kooxahan matalsan ee argagixisada ah taasi wax ma kugu abuurtay cabsi ah oo kaa joojin doona fankaaga heesaha ah ee aad wadid ee aad jeceshahay ee aad weligaad ku soo jirtay mid cabsi iguma abuurin maxaa yeelay qof walba maalintiisu dhimanaya qofna maalintiisa ma gudbaayo taas la aligeed waxaan ku indhaadeega inaan shaqadiisii wato su-aasha kaaga socota maxamed oo khadka internetka nagula jira wuxuu ku yidhi ma laga yaabaa inay kooxda waayaha cusub u guuraan magaala madaxda muqdisho waa rajaynaynaa inaan guryaha taa ka iibsano meeshaas idinkaa nasiib u lahaa inaad tagteen magaala madaxdii muqdisho annagu muddo dheer baan ka soo maqnayn dad aad u fara badan ayaa ku soo laabanaya magaalada muqdisho maalintii dhaweeta markii aad ka degteen runtii warbaahinta Soomaaliya TV-ga iyo iskula jirta idaacadaha iyo journaalkuba airportka la idinku soo dhaweeyay waxa iga muuqatay dad aad u fara badan oo diyaarado kala badan ka soo degay oo meelo kala duwan adduunyada ka yimid marka taa aragtay maxaa dareentay falis markii aad airportka ka soo degtay eed aragtay idinkoo kaliyaata fanaaniintiina waad wada socoteen laakiin waxaa jiray dad aad u fara badan oo meelo fara badan ka kala yimid daafaha adduunka oo airportka aan ka arkayay markii aan warbaahinta ka daawanaynay marka dadkaa aragtay oo dadkaas meelo fara badan oo adduunyada ay ku kala nool yihiin qaarkood markii ugu horreysay sidiinoo kale ay ku soo laabteen baa jiray marka dareenkiinu muxuu noqday markaad aragteen dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood ay markii ugu horreysay ku soo laabanayeen sida adigoo kale waxaan hubaa Shiina iyo
iyo dad kale inay markaa hore u tageen magaalada muqdisho laakiin adigu ay ahayd markii ugu horeysay aad ku laabatay in ka badan muddo 22 sanadooda runtii taas waxay cadeynaysaa inuu wadankii hooyo nabad yahay wax loogu soo wada laabanayo waxaan ilaahay uga baryeynaa saas iska fiican inuu ilaahay ugu sii wado taas anaguna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa Soomaaliya inay sidaasi ay noqoto qorshihiina su'aashan aniga iga socotaa falis qorshihiina maxaa ku jira haddii aan nidhaahno 5 sano ee soo socda hadda kooxda waayaha cusub meelo fara badan ayaad soo marteen markii aad bilowdeen dhalinyar fara badan oo idinla bilowday qaarkood imika Mareykanka degan yihiin intii kalena waxaad imika heesihiin bad wadaan oo aad ku caan baxdeen marka maxaa qorshe idinku jira 5 sano ee soo socda haddii ilaahay nagu simo inaan wacyigelinteena sii wadi doono aan marnaba ka caajisi doonin aan albano fara badan oo nabadda ka sheekeynayo oo wacyigelinna aan soo wada saari doono taana waxaan idin rajaynaynaa inuu ilaahay idinku gacan qabto su'aashan waxay ka socotaa Maxamed Xasan oo barta internetka ku jira wuxuu yiri waxaan maqlay inay soo gaari doonaan kooxda waayaha cusub qaaradda Yurub goormay taasi dhici doontaa oo aan maqli doonaa inaad soo gaadheen buu yiri qaaradda Yurub oo ka bilaabi doonaan farmasarixeedkiina waxaan soo gaari doonaa insha Allah bisha May fandig banadi fara badan waan ka qaban doonaa insha Allah iyo waliba wacyigelin ما شاء الله أد سؤاشاسي وأدوجت جوابتي سؤاش الله بعض إن مركب بلابيسين إن فلس إن فرمس الحيادات كان أما قرح صباح الصومالية قرشها واحد إذا كشري مجال مضح طبعا إن كهيستان مركب هوري مجالوين ككلا أتكهيسيسان سيدا قال كعيو سيدا جروي سيدا هرجيس سيدا باصاصو إن كسمايو ماله فرح بدنا مركب هوري قعنت كوحدة الشباب كشري هذا الحري إن تاسولي قرشها ما يدين كتشرتا المستقبلك. سفيعا وانسي ودي دونا مال والبا ومد الصوماليات إيجوكتنا وحان جعلنا مر بإنا نتغنو محان فدهاي شوي فربضان أقبلنا ونبضك شاكينا. إن هل كان عبدي وحيري أو كوجم هاد علينا إن هاسيه أتكهستين ونكسنا أتكهرت مادين برع البضيات دا أتكهرت مادين رجع حسدا ayaa wuxuu yiri si aad wanaagsan curiyay oo ka mid noqday nabadan iyo xasiloonidan hadda la gaaray maxamed xasan oo isna markii hore su'aasha ku weydiiyay goormad soo gaaraysan qaaradda Yurub isaguna uu ku mahad celinaya wuxuu ku leeyahay ku soo dhawaada marka aad timaadaan waan sugaynaa qaaradda Yurub aad imaanaysaan bisha shanaad bisha Maayo su'aasha oo maxamed xasan ku weydiinaya waxay tahay waxa kale oo jiray buu waxaan weydiin lahaa buu ma jiraan dhalinyaro cusub oo aan ahayn kuwii hore waayaha cusub qoladii hore ee la bilowday dhalinyaro cusub ma idinku soo kordhay kooxdiina waayaha cusub way jiraan dhalinyaro fara badan oo nagu soo biirtay oo waliba hadda heesa cusub ayagana la xifdisiinayo mar dhow muuqaalka ka arki doonaan way jiraan aad bay u fara badan yihiin maxamed oo waxaan filayaa isagu jooga magaalada Stockholm ee dalka Sweden isaguna su'aasha ku weydiinayo falis waxa ka mid ah buu yiri magaalada Stockholm ma ku jirtaa buu yiri goobaha ay kooxda waayaha cusub ay bandhig faneedkooda ka soo ay soo bandhigi doonaan wadankaasi xarunta wadankaasi Sweden waa isku soo wada mari doonaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waxaan rajaynaynaa inaan ugu wada tagi doono ما شاء الله أنا تاسن دين رجينا إن فلس واحد شراء إن سؤال أنا جاي صعطاء إن قفل بوحد شعلي هي فنان ومرك يرانتيسا أما وكهلا أما وهسيسا كهلا مرك وجوري كشوجو مرك وجوري كشقين يو مرك وبابور كوضو إن مرك إن فنانين تي هراء أما فنانين تهدد شرتا فنان شعلان شرتا أو هستيسا كهس شرتي مشرا intii fanaaniinta iyo ma kala dhacaan dhamaan waan jecelahay laakiin qaas ahaan aniga waxaan u jecelahay Hiba Nuuro ما شاء الله هبة نورو ان waxa weeyaan fanaanad Soomaaliyeed oo aad iyo aad loo jecel yahay en Xaliima Khaliif Magool ayay ahayd aniga fanaanada aan aad ugu heli jiray ilaahay naxariista jannaha siiyo oo ahayd fanaanad Soomaaliyeed oo caana amiin إن محمد إسماعيل وشوجا إن وطن كالسودان حرمتها مجالات خرطوم عاصمة وحكوري إن ملقا يا بابوري إني فلس نوسو جاران يدي كوحدة دوايها عصب مجالات خرطوم وطن كالسودان
waxaa ka hadlahay shiine kuma maqaltaas hadda cali waxaan malaynayaa runtii bilis hore uga jawaabtay waxaa jira meel walba oo Soomaali ay joogto waan tegaynaa runtii waxaa cusub oo qorshaysan tahay meel walba oo bulshada Soomaaliya ku dhaqan tahay in wacyigelinta waxaa cusub iyo fariimahooda ay gaaraan khaasatan Khartoumna waxay xasuus gaar ah noogu leedahay waa meel kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku nool yihiin waxna ka bartaan runtii muhiimna way noo tahay in fariimaha nabadda iyo ka hortagga xagjirnimada aanu gaarsiino si aysan uga sii horfaa'iideysan qolyahan qowlaysatada ee jecel in da'yarta Soomaaliyeed ee jaamacadaha ku jira ay ta soo kaxaysaan qaraxyada ku raran sidii ka dhacday golihii maxkamadda ee magaalada Shabeellaha aad baad u mahadsantahay shiine waxaa iyadana sharaf noo ah inuu shiine haddana la soo galay khadka telefoonka shiine oo ah fanaaniintii asaasay waayaha cusub shiine iyo falisna ay laba qof oo isqaba oo xaasley ah yihiin fanaaniinna ay yihiin aadna aan ugu faraxsanahay shiine aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa su-aashaad maxamed ismaaciil in loogu jawaabay waxaa jirta iyaduna su-aal uu noo hayo maxamed yuusuf oo ku nool magaalada Istanbul dhalinyarta Soomaaliyeed ee runtii aan ku arkay markii aan tagnay Istanbul shirkii Soomaaliya loo qabtay oo aan aadna halkan uga salaamayo wuxuu yiri falis ma laga yaabaa inay nagu soo gaaraan iyaguna ay yimaadaan magaalada Istanbul dad aad u fara badan ayaa filaya inay kooxda waayaa cusub runtii wanaag u haya oo jecel inay ku arkaan daafaha adduunka oo dhan waa imaan doonaa insha Allah waxaan ku iri ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan aad ugu hami weynahay inaan soo mari doono aanshooyo fara badan oo ballaaran u dhigi doono aad baad u mahadsan tahay su-aal baa ka socota halkan cabdi su-aal aad u muhiim weeyaan su-aashaasi oo ah wuxuu ku weydiiyo ku yidhi walaal falis waxaan ku weydiin lahaa sideen uga hortagi karnaa buu yidhi dadkan maskaxda laga maydhayo ee loo adeegsanayo isqarxiska ilaa buu yidhi qof nool oo isbiimeynaya aad bay u adag tahay ayuu ku weydiinayaa cabdi su-aashaasi sidee maxaynu qaban karnaa si aynu dadkaasi uga joojino maskaxda laga dhaqayo ee maskaxda laga maydhayo ee lagu shubayo sunta runtii waxay ummadaas u baahan yihiin wacyigelin aad u ballaaran in la wacyigeliyo la waaniyo maxaan ku dhahaye laga dhaadhiciyo wadanka uu halaagayo ama uu dhibaatada u horseeda inuu wadankiisa yahay oo wacyigelintana runtii wacyigelin aad u ballaaran la wacyigeliyo waa run weeyaan wacyigelinta waa waxa ugu muhiimsan weeyaan dhalinyarta Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba in la wacyigeliyo oo la tuso khatarta iyo mushkiladda ay leedahay burburka iyo dhiiga daadanaya ee ka imaan kara qarxiskaasi oo aynu aragnay maalintii dhaweetay Axad oo aynu aragnay bishii 18 ama 16 bishii ina dhaaftay Maaris aynu aragnay maxamed oo ku weydiinaya wuxuu ku yiri waayaha cusub waxaan ka codsanaynaa buu ku yiri inaad u sameysaan hees dawladda Turkiga waayo wuxuu yiri meesha ay dawladda Turkiga waad ogtiin buu abaalka ay noo gashay dawladdaasi su-aashaas ayuu idinka dalbaday haddaad tihiin kooxda waayaha cusub su-aashaas halkan idinku jirtaa يا ماشينا كمان هذه واي قال waxaa jira maxamed yuusuf isaguna wuxuu yiri fikirkaasi uu ku raacay uu soo gudbiyey maxamed markaasi waxa kale oon falisku weydiin lahaa markii aad ku soo laabatay magaalada Nairobi aad ka timi Muqdisho kulliba qofku markuu wadanka taga uu arko baahida la qabo maanta waliba dumarka iyo caruurta ay u baahan yihiin ma jirtaa wax barnaamijyo aad markaa fikrad kugu dhalatay oo aad leedahay aad u gudbisid waliba dumarka iyo caruurta Soomaaliyeed oo ah dadka maatada ah ee ugu liita hadda Soomaaliya way jiraan ummadda Soomaaliyeed waxaan jeclahay in wax loo qabto runtii anigana hadda hees cusub baan wadaa inaan ka qaado oo abwaashiin ay sameeyay waxaana jeclaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan inay iscaawiyaan intaas aan oran lahaa aad baad ugu mahadsantihiin taasi dad fara badan oo nagula jira internetka su'aalihiina ayaanu filaynaa falis cabdi maxamuud oo ah fanaanad caan ah oo ka tirsan kooxda waayaha cusub oo uu garab fadhiyo shiina isaguna oo mar hore isagana la yeelanay kulan
oona halkan ku aragnay Mareykanka isaga laftiisa markii uu yimi barnaamij ka heesay xarunta Kennedy Center ee Mareykanka ku taala su-aashan aniga iga socotaa Falis ma jirtaa qorshe aad haysataan oo leedahay maalmaha ka mid ah fanaaniin aad jeceshahay ayad wada heesi doontaan oo aad group wada samayn doontaan oo Soomaaliya waan aragnay sidii maantii dhaweyto inaad la heesteen fanaaniin fara badan oo ka yimi daafaha adduunka oo Muqdisho idin kala qayb qaatay Abdulhalim, just come back with the question. su-aashaydu waxay ahayd dad waxaa jiray fanaaniin badan oo caalamka ka yimid oo isugu jiray dad ka yimid Afrika oo idin kala heesay maalintii Muqdisho oo ay dadku runtii aad uga heleen inay ka qayb qaateen nabadda iyo xasiloonida ma jirtaa inaad isleedihiin mustaqbalka ama fanaaniintii hore ha noqotay caanka ahayd ee Yurub iyo Mareykanka ku nool ama kuwa hadda jooga wadanka dhexdiisa inaad wada samaysaan fan masraxadeed aad wada gali kartaan mustaqbalka ma jirtaa taasi way jirtaa waan rajaynaynaa in kasta aniga aan jeclahay inaan Ibnuur show ila samayso aad baad u mahadsan tahay Falis su-aashan oo ka socota Cabdi wuxuu yiri ma ka heesteen musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada waayo cadaalad darrada aad bay u xun tahay buu ku yiri oo taasina waxay ka hortagaysaa nabadda iyo xasiloonida waxaan maleynayaa Falis su'aalaha aad ugu farabadan laakiin waxaa fadhiya digriya oo mararka qaar su'aalaha ka qaban kara ama maaragtay aad baad u mahadsan tahay Shiina waan jecelahay dhalinyarta waayaha cusub in iyaguna ka soo qayb qaataan oo su'aalahooda ay ka soo galiyaan oo ay iyaga laftoodu ku soo darsadaan ra'yigooda dabcan taas waa wax aad u muhiim ah oo ay dadku sugayaan dadka faraha badan leh hadda internetka inagu la jiraay ku soo dhawaaw digriyo adiguna ku soo dhaweynina fanaaniin ballaaran oo ka tirsan kooxda waayaha cusub baa tihiin oo dhalinyara digriyo ku soo dhawaaw عبد الحميد ودوهي عبد الحليم صح عبد الحليم برادر ودوهي كوحده ويا عصور ما شوي فديان لحله وافديا برهان وافديا قدومي كوحده وافديا ما شاء الله aad bad ma filaynin intiin maalinta meel isku wada timaadaan fanaaniintiinaasi oo dhani waan soo dhaweynaya mar labaad su-aashaasi oo ahayd wad ka soo qayb gali kartaan madashu way furan tahay Falis iyo idinkuba waxaad tihiin koox aad u ballaaran oo laga jecel yahay daafaha adduunka oo su'aalaha si u socdaan waad arkaysaa dad fara badan ay ka filayaan Yurub iyo Mareykanka iyo qaaradaha shanta aba markaasi su'aalaha lafteeda waad nagala qayb qaadan kartaan adiga iyo Shiina iyo Lixle iyo Burhaan iyo intiina joogtay stuudiyahayaga magaalada xarunta wasaaradda safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi waa maasanta walaal waan ku jirnaa barnaamijka gabadha kulanka Falis wuxuu ahaa kulankii Falis kooxdan way garab fadhidaa maadaama gabadha su'aalaha iyada si toos loo weydiinayo waan ku qasbanay inaan geesideeda soo fariisano waayo cusub waxay diyaar u yihiin inay fanaaniin walbo ama ajaanib ahaadaan ama kuwa Soomaalida ahaan la heesaan wacyigelintana in lagala qayb qaataan barnaamijkeenu wuxuu ahaa dhibaatada waa la iska dhaafaa dadkaaga loo dhintaa dhulkaaga la fiirsadaa dhaxda waa loo xirtaa barnaamijka wadana wuxuu ahaa Somali Sunrise oo ah qorrax soo bixi Soomaaliya waxaan ka bilawnay wadankii hooyo caasimada Muqdisho gabagabadan waxa ka dhigi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo Muqdisho safarada hadda oo horeeyna waxa ku aadi doonaa Yurub ilaa Mareykanka meel walba Soomaali joogto soo mari doonaa gobolada kale hadda ka dhawaajiseen waa targetka waa noo saariyeen waan u soconaa haduu Ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsan tahay digriyo heesihiina aad bay dadku ugu raaxaysteen oo aanu ka daawanay barta internetka warbaahinta bulshada iyo saxaafadda adduunka oo dhan su'aal halkan idinka socota ayaa waxay tahay waxa kooxda waayaha cusub ay ka go'an oo ay ku dhawaaqday inay sameeyeen bi'ad nabadgelyo oo xasilooni ah oo dadku ay u jeesadaan sidii markii horeba aad u sheegteen durbaan iyo music in lagu bedelo qaraxa iyo rasaasta dhacaysa marka waxaan filayaa inaad taa lafteeda aad nooga jawaabi kartaan sideeba taa u samaynaysaan maxaase maskaxda idinku jirta mustaqbalka soo dhow mustaqbalka soo dhow waxaa maskaxdeeda ku jirtay insha Allah inuu wadanka hore nabad noqdo waayo cusubna mar dhow waxay tageen wadanka hooyo waxaan ummadda tusnay inay Soomaaliya nabad tahay
nabadna ee ka soo cusboonaatay qorax soo baxo iyo Soomaaliya ka jira maanta qof walba muwaadin Soomaaliyeed uu geeskiisa ka qaato waayo cusub kaliya ma aha in waddanka lagu hadlayo oo maartay wacyigelinta geeska wadaan ummadda tusayna inay wacyigelinta geeska wada laakiin qof walba oo Soomaali ah waxa waajib ku ah inuu waddankiisa hooyo dhismaha ka socdo ka qayb qaato duu culamaha halahay haduu ciyaartoy halahay haduu filan halahay haduu fudud halahay ama haduu dhakhtar halahay waddanka hooyo dib ha loo wada laabto wacyigelinta geeska lagu qaato aad baad u mahadsantihiin su-aashani waxay ka socotaa cabdi oo raba inuu mid idiin weydiiyo haddii ay suurto gasho waxa uu yidhi dhib badan ayaa ka dhacday buu yidhi muqdisho iyo soomaaliya teebaase idinku naxdin badnayd buu yidhi dhibaatooyinka dalka ka dhacay iyo dilka iyo naxdintaasi teeba idinku naxdin badnayd buu yidhi anigoo ku bilaabaya falis oo ku xojinaya dhallinyarta garab fadhida ee raba inay ka qayb qaataan su-aashaas runtii mar walbo dil dhaca ama maxaan ku dhahaayay dhibaato ummadda ay gaarto annaga naxdin bay noo tahay aad baan uga xunnahay waana wax laga wada naxo waa runtaa falis waa falal argagixisa oo dadku maalin walba ay ka fikiraan oo ay ka arkaan dhiig daadanaya oo la qubayo maxamed xasan oo halkan ku jira isaguna barta internetka wuxuu salaan soo gaarsiinayaa lixle ayuu aad u salaamaya oo ka tirsan dhalinyarta waayaha cusub digriyo baan weydiin lahaa su-aasha lafteeda oo ahayd teeba ugu naxdin badnayd kolleyba dhiig daata iyo dhimasho waa isku dadku waa isku wada mid weeyaan oo waa dhibaato dhacda weeyaan naxdintu si falis ku sheegtay mar walba naxdin qof oo Soomaali ah muwaadin Soomaaliyeed oo muslim meesha ku dhintay naxdinta mar walba waa iska jirtaa ama tiradu un baa kala badan walaal qaraxyada si hotel Shaam oo kale waa ogeedeen hargaha saamaha sidoo kale aad naxdin aad u fara badan oo dhalinyaro soo qalin jibisay oo waddanka maartay dibadiisa loo wado oo waxbarasho mustaqbalkooda soo dhameeyay meeshii maartay dunida la hanqaadi lahayn ay kala maartay loo jawaabay ama abaal loo dhigay in maartay dunida la dhaafsiyo naxdinta wax mar walba iska socdo waxaan leenahay qaraxii darad ka dhacay ama shalayba maxkamadda gobolka Banaadir waxaan dhigaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan u direynaa tacsiyo tiraayo leh ilaahay ha u naxariisto inta dhibatay inta dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo waxaan dhigaynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan ha lagala qayb qaato la dagaalanka argagixisada waa run weeyaan cabdi waxa uu yidhi saaxiibka ayaa ku jiray dadkii ku dhintay hotelka Shaamo ee aad sheegtay oo markaa qalin jabiyay buu yidhi taasina waa wax aad u naxdin badan dabcan dadkaasi masaakiinta ay halkaasi lagu dilayo ee dhiigooda la xalaaleysanayo su-aal baa jirta halkan aan idin hayno oo ah fan masraxeedeedka aad ka samayseen magaalada muqdisho sideed u aragteen falis baan ku horeynaya sidee buu kuula eegaa dadkuna sidee idiin soo dhaweeyeen weliba dhalinyartu inkastoon sawirada aragnay iyo musiga iyo videoga iyo muuqaalka laga soo duubay laakiin sidee baad laydiin soo dhaweeyay sidee baad soo aragteen falis baan ku horeynayaa su-aashaasi inagoo ku xejinaya dhalinyarta kale ee kula fadhida waayaha cusub runtii aadan oola soo dhaweeyey shoogii si wanaagsan baa noogala qayb qaatay ummadii oo dhan way nagala soo qayb galeen ayadoo fawdo ka dhicin si wanaagsan ay noola daawadeen noogalana qayb qaateen waxaan rajeynayaa inuu si wanaagsan noogu dhamaaday aad baad u mahadsantahay falis maxamed xasan baa isna halkan su-aal soo weydiinaya oo idin weydiinaya falis waxa uu yidhi waxaan weydiin lahaa buu yidhi falis iyo dhalinta waayaha cusubba xilliga ugu soo horeeya ay kusoo laabanayaan magaalada madaxda muqdisho waa goorma weeyaan magaala madaxda muqdisho insha Allah waxa ku laaban doonaa haduu ilaahay rado mar dhow waxa hadda uu soo baxnayna waa hawlo shaqo xarunteeda base waa Nairobi laakiin sida hadda isla go'aaminay gudoomiyaha kooxda waayaha cusubna aan isku gaarnay oo ah in waayaha cusub u gurto wadankii hooyo muqdisho haddana waxa uu soconaa sida daatan uu sheegnay Yurub ilaa qaaradaha Mareykanka iyo dunida dacaladiisa marka shaqada soo gabagabeeyno oo wacyigelinta meel walba Soomaali joogta oo ku gaarsiino si aan ognahaybo dadka isqarxiya xamaasisan oo maarta jidbaysa waa dadka qurbaha ka yimid oo dibadda ka yimid way oo hal dhigadi wax loo sheego leeyahay janna galaysi ina ay kale ka dhacsiin oo waxa meesha ku diirin waxba ka jirin waddankiina hooyo u laabto dadkana waxa la qabto muqdisho insha Allah si u dhaqso badan oo u socnaa oo barnaamijka Soomaaliya sarreeyay oo wacdar qorrax soo bixi Soomaaliya ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa haduu Ilaahay rabo Cabdi Xaliim hadda waxay ku darsado qof kulaad waa shine runtii waxyaalaha aadka ula yaab kale waxa weeye in aad aragtid in laba waxyaalood ay isku mar isla dumaan ta koowaad waxa waaye in shacab Soomaali sidii u dambeysay hal mar la wada laayo
تكسي درا waxa weeye in wiilkii Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah ee jaamacad ugu qaalisay adduunka ka qalin jabinayay ee fursad u helay ee nolosha helay ee taxadarka helay ee qiimaha bini'aadanimo helay in asagna meesha ku dhinto runtii waa laantii baxaysay iyo geedka silka isku maraysay wada go'aya ana waxa oran lahaa musiibo qaran waaye waana in laga hortago in shacabka la kala badbaadiyo oo shacabka maatida la leeyahay la badbaadiyo kuwa aqoontii mustaqbalkii dibadda noogu ah ee jaamacadaha ay fursadaha helayna ee ayaguna baaba ay la soo khaldayay ee tan la soo kaxay hadana lagu leenayo caruurtii maatadii ayagana waxa oran lahaa in la badbaadiyo laftooda wax loo sheego sababta wiilka maanta la yiraahdo Canada ka yimid oo kale sidoo baan sheegayso kale ee shalay isku qarxiyay maxkamadda kale hal sano oo dhimanada la yiri jaamacad iyagu dhiganay ee runtii waa wax laftigeeda laga naxo sababta mustaqbalkii asaga ahaba sababta asaga waxna bartay fursad u helay nolol u helay waxbarasho helay runtii marka anaga ujeedka leena waxa weeye waayaa cusub waxay ka duulaysaa in dhalinyarada noocaas ee Mareykan iyo Canada iyo Europe iyo Australia iyo Africa iyo Carab laga soo kaxaynay wax dhiganaya shabaab waxay uga soo kaxaystay waa dacaayad iyo propaganda been oo dhalinyaradaas mustaqbalka lagu soo jinayo dadkoodana lagu leenayo ujeedkana waxa weeye inaanu safar aanu galno si aanu dhalinyarada ugu sheegno waxa la idin sheego waa been waxa kama jiraan runtii mustaqbal baa tahay nolol aad tahay iftiina tahay dadkaaga ku baahan dadkaaga marka u tagaysid dawo iyo waxbarasho jaamacada u geey laakiin adoo miinay bambata u tagi aad baad u mahadsantahay Shiina inaad ku soo darsatay taasi waa noqdad aad u muhiim ah weeyaan halkan Maxamed Ismaaciil baa isaguna su'aal idin hayo idin weydiinaya wuxuu yiri kooxda waayaha cusub ma noqon karaan buu yiri oo ma noqon karaan mustaqbalka kuwii u horseedi lahaa nabad iyo isdhexgalka bulshada oo aad iyo aad u muhiim ah isdhexgalka bulshada waliba dagaaladii sokeeyay iyo mashaakilkii iyo argagixisadii dhacday su'aashaasi haddii aad nooga jawaabi kartaan aad baad u mahadsantiin mahantii waxaan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ku wada noolaadaan farxad iyo walaaltinimo iyo maaragtay in maaragtay nabadda iyo xasiloonida laga wada shaqeeyo qof walba Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in Soomaalidu aysan lahayn qabiil inaysan lahayn diin kale inay isku diin yihiin inay isku af yihiin inay ku wada noolaadaan Soomaalinimo walaaltinimo iyo muslimnimo iyo cadaalad iyo sinaan intaas ayaan nabadda lagu heli karaa ummadda Soomaaliyeedna ku badbaadi kartaa aad baad u mahadsantihiin su'aashan Abdul Halim, excuse me, we have 18 other participants who are taking part in this event. Probably if we could give them a chance. Okay. A few questions. Hay aad baad u mahadsan tahay Kaltum waxa jira iyaguna dad xarunta fadhiya safaaradda oo raba in iyaguna su'aalaha weydiiyaan oo ka qayb qaataan fadlan ku soo dhawaada idinkuna magaciina idinkoo sheegaya marka hore عبد الحليم waxaa kala raaca inaan raacsado hadaayta falis erey ka dhawaajiso ahaa waxa ay ugu yaabada muqdisho markaa tagay waxa uu soo xigay dadkii ka u heesi jirnay al-shabaab yani dad badan ay soo diiray falis waxay ka wada su'aashaas waxay ahayd waayaa cusub waxay tageen muqdisho showiyada dadka wacyigelinta u sameeyay shacabka kaliya target kumaana saarine waxa uu tagay xarun dhalinyaro dhaqacilis qarxiyada lagu soo qortay oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo al-shabaab rag la magac baxay ay ku jiraan oo gaaray tira 850 waxyaalaha ugu yaabadnaa oo meesha isku aragna waxay ahayd waxa la yiraahdaa dhalinyaradaas waxay ahayd rag markay dhalinyarada qabtaan ama qof muusig dhageysanaya ama heesaha waayaa cusub qof dhageysanaya mawriga taleefon markay ka bixiyaan waxay jireen mawriga awdatiin soo waayaa cusub ku jiraan waxa dhageysanaysa waayaa cusub aha waay haddii laqsiyaan bibiin si jira dhig jira laq waayahay ila waxa dhageysanaysa mawriga waxa ilaahay loo suurtageliyay mawriga dadka laqsi jiray waxa ku laqsi jiray anagu baa laqsiinay muusig dadka lagu qasbi lahaa ayaga si toos ugu laqsiinay oo si labadna ku laqsiinay waa 850 dhalinyaro Soomaaliyeed wadaadada dadka isku tilmaami jiray oo maartay dadka gacmaha ka jiri jiray maalin kooda waxay ku hayeen waayaa cusub noolaada dareemka bartay ila maartay xaq jirnimadan iyo jannada la galay in waxba maartay in ummadana fogeen ummadana la qalday runtii waxyaalaha ku sii darsada waxa ugu yaab badan waxay ahayd aan rabay in la wadaago asxaabta la fadhida meeshan madaxii hore ee mas'uuliyadda Soomaaliya xafladda la jooga wuxuu la yaabay dhalinyarada oo muddo 6 saac ka badan iska neekinayso aan fariisanayn markaas warkaale kiisa garan qasoo yiri warkaale yamiin soo taa wadaadada ahaydeen ma maxay wararkii wadaadada dana ay rubuusikay diidana dadka ku jiri jiray ku qabtaan maxay tiin minikada ka dhacay runtii taa waxa cadeynaysa in dhalinyaradana ay yihiin dhalinyaro la khalday oo kaliya laakiin dhalinyaro
u baahan inta dhalinyarada adduunka ku nool u baahanta inay helaan u baahan waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo asxaabta nala joogta soo dhawaada magacaada iyo su-aasha oo magacayga waxaa waaye bashiir maxamed cusmaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waayaha cusub iyo barnaamijkan oo kala saalkan ka socda waxaan rabaa waa markii ugu horreysay anigu waayaha cusub inaan telefishin ka daawada ma aha si leef oo la kulmo shaqshaqta waa arkeen laakiin ayagoo wada dhan waxaad samayseen wacyigelin cusub in badanna waa wadaan wacyigelintaan welina waxaa sii socda dadka waxaad ka wacyigelinayseen waa sii socdaa shalay baa u dambeysay qof aqoon-yahana oo la rabay dadka inuu badbaadiyaa tahay marna wax niyadjaba ma idinku keentay ina aad ka tanasushaan baraarujintaan maadaama dadkii aad baraarujinayseen maalin walba ay naqshad cusub samaynayaan weliba kuwii dadka u aqoonta badnaa ay samaynayaan marna niyadjaba ma idinku keentay inaad ka tanasushaan oo dadkan ku badbaadisada runta waxaan haddaa ku darsada taa waxaa kasii dara digrioo ka jawaabay waxaa la ii sheegay intii xamar aan joogay aan la sheekaysanayay dhalinyarada shabaab ahaa laakiin hadda dhaqaalinta lagu wado waxyaala wiilaa fudud waxay ahayd nin farmashiya leh ba waxaa la yidhi waa farmashiya dadka dadka daweynayay jaanis markii qof madaxa ama qof muhiima ama qof aqoon-yahan dadka ay rabaan inay dilaan markuu arko asagaaba baskoolata qaada madaxa ku dhuftaba macnaha waa wan jaanis ka faaidaysanaya macnaha taas waxaa deenaysaa naqshadaha ay degeen macnaha farmashiya ay galeen baati ay dukaan ay galeen maqaaxi ay galeen taxi ay galeen ciidan ay galeen meel walbay galeen laakiin muhiimadda anigu fikirkayga aan waxa waaye in intaasoo dhan looga hortegi karo intaanoo dhan lama dhalan dhibka iyo barabalanka laakiin waa loo sheegay waana wax lagu shubay oo fariin la gaarsiiyey waxa keliya oo looga hortegi kara waxa weeye in fariin fiican oo badbaadada aadanaha iyo nolosha tusinaysa in loo sheego meesha uu joogana loogu sheego waa halkaa u arko in qof walba badbaadinayso oo qofku noloshiisa fit because wiilkaas qarxanaya wuxuu aaminsan yahay inuu jaamacadda iyaga uga soo tagay inuu janno xamar taalo oo ku galayo laakiin haddii war janna ma jiro meeshaan janna ma taalo walaal meeshaa hooyadaa kaala carartay ayadoo xabad ay ka dhacayso qaxay rafaada nasiib baa heshay oo xoryaha qaxootiga mada aamarina ilaahay kanada ku geeyey dhib intii Soomaaliya ku buraysay maanta oo la raba dalkaaga aqoonti inaad ku istitid oo nolol keentid dhibkii aad kala qaxday ama lagaala carray dib hadu ha u keeni janna meesha ma taala janna shalay laga carray hadii janna taala hadii xabad janna lagu yeeray okay su'aasheeda ugu dambaysa waxa weeye waxaan weydiinayaa waxaad tir magaalada Muqdisho waxaad soo samayseen barnaamij fiican oo dadka Soomaaliyeed u soo samayseen markaas iga qayb qaatay dad badan oo Nairobi jooga waxay aaminsan yihiin magaalada Muqdisho inaysan ka jirin nabad ku filan waxaa lagu tilmaamaa dawladda Soomaaliya oo meelgaar ka baxday inay joogto Maka al-Mukarrama shalay markii qaraxyadu ay dhacaanna waxaa dad badan isweydiinayaan dawladdu inay ku guuldareysay ammaankeena sugta adinkuna waxaad leedihiin carradii waa nabad waa lagu noqdaa ayaad leedihiin maxaad u sheegi kartaan marka dadka Soomaaliyeed oo ku wacyigelinaysaan oo meesha u tagteen maxaad ku qancin kartaa dadka su'aalaha fakarka caynkaasa qaba inay isdifaaci lahayd ayadii intii dadkii kale ay difaaci lahayd ayada xarumaheedii loogu soo galay oo maxkamadaheedii iyo xaafidyadeedii la burburinayo oo galal yar ay burburinayaan adinkuna nabad baad ka sheegaysaa maxaad arrintaas kaga jawaabi kartaa jawaabteeda walaal horta waa mahadsan tahay barnaamijkan wuxuu ahaa kulanka falis maadaama kooxda laakiin dhal tahay waa jawaabihii stil oo kula qaybsan karna haddii ilaa yidhahdo waarweyn muqdisho annagaa tagnay waxaana kusoo aragnay inay muqdisho nabad ka jirto haddana ilaa haddana hadafkaasna waa qabnaa oo ah inay muqdisho nabad ka jirto qofka dhimanaya iyo kan rabo inuu wax qarxiyo qadartu baa udhexaysa buugi ama muqdisho ha joogo ama New York ha joogo ama Nairobi ha joogo mar walba horta waxa waa qadar qof walba burkiisa soo gashubul dhimanayo maanta sida meesha u fadhiyo waxa laga yaabaa qofkeen kii dhiman lahaa inuu gudaha ku jiro kii qarxin lahaa oo banaanka taagay cid kale celin karta ma laha muqdisho nabad baa ka jirta annagaana soo aragnay waayo cusbixaan kooxda kaliya oo ka hortagday argagixisada oo haddana aad loola bartilmaamo sidoo maartay taargada Nairobi xataa lagu soo weerar haddana wadankii waa tagnayo barnaamijyada si qurux badan loo dhacay si qurux badan ay u socdeen waxa arkaysiin maal walba dhibaato la soo gudbinayna waxa wadanka gudihiisa ka jira ma annaga marka Nairobi ka dhoofeen sawir qaldan baa wadanay gudaha Muqdisho marka tagnayna sawir fiican baa soo helay ah media always waxbay bubuniyaan annaga waayo cusbahan culays ka saarnay oo eeda saarna media koos waxa arkaysa qarax iska dhacay oo qofna ku dhiman oo la leeyahay hebel baa loo dhigay ka badbaaday hebel loo dhigay macnaheedu waa barbagaalda waxba ka jirin Nairobi da arkaysa wadanka ka arkaysa 49 askari wax lagu dilay carruur Turkaan 16 askari ilaa hadda la siiyay laba bubuulin oo maarta laga bahday Mareykanka arkaysid wuxuu leeyahay idaacad la yiraahdo CNN waxay u kala baxay international local waxa laga sidayaa maal walba horumarka
horumarka iyo maaragtay wixii maraykanka ka jiro iyo wadaniyadooda iyo iskuul baa qalajabiye iyo FBI waxa dheelayso basketball Miami iyo Ohio laakiin adduunkaas qalqal ka jira looma sidoo marka Soomaaliya nabad baa ka jirta waxa arkaysa la soo gudbinayna waa media culayska anaga saaran waa yacsadaan hadaa ku darsado dibka adduunka uu ka jira runtii argagaxisaduna Semberi waxay target garaysaa in wax ay samayso si loo buunbuuniyo oo loo tusiyo naga jirin laakiin saan waxa la tibida ka daawanay dalka Mareykanka oo dunida wadanka wax xasiloon shalay waxa ka dhacay buunbooyin Boston ura ka caysay dad orday oo Maradona sameynaya loo dhigay inkastoo madaxweynuhu sheegay Obama in cadaaladdu marna ay saacafinayn kuwii ka dambeeya runtii anigu waan aaminsanahay in Soomaaliya kuwa ka sameeyay saamaha hargaha ama Shaam ama tii hadda u dambeysay inay cadaaladdu cafinayn laakiin yaa loo dhigin in dalka dhibaabaay ama dalka uu burburay waa dhib dhacay waa problem la abuuray waa dhib soo kordhay laakiin waxa ula midna caalamka laakiin waa in aan ku adkaysanaa dhibka dhacay in cadaaladdu aysan cafin kuwii ka dambeeyay sida Amerikaanku ay aaminsan yihiin laakiin Muqdisho waa nabad qaraxay bamkuna argagaxisana adduunka cadawgeeda ma Soomaaliya kaliya warunta shiina su'aashaasi haddaan idinku darsado waxa weeyaan sida aad sheegtayba mashaakilku maaha uun mashaakil ka taagan laba qaraxo iyo saddex qaraxo la burburiyay dad badan oo qurba jooga oo maalin walba aanu Facebook iyaga page iyaga aan ku soo dhajino ayaa jira horumarka Soomaaliya ka dhacaya ina sanadkii iyo barkii ugu dambeeyay meel aanay Soomaaliya gaarin 22 sano ugu dambeeyay weeyaan argagixisaduna waxa weeyaan waa fikrad qallafsan oo aan dhamaanayn oo meel walba ay la dagaalamayaan argagixisaduna may bilaabmin shalay waa wax socday ilaa maalintii ururweynaha ka qayb galeen ee Al-Qaacida su'aal muhiim ah halkan ku idinku jirta oo ah idinka socota Maxamed Ismaaciil inta aynan barnaamijkeena soo gabagabeyn 5 daqiiqo ugu dambaysa su'aashaasi oo ah runtii waayaha cusub ma laga yaabaa buu yiri inay dadkii iyagoo muusigooda ku raaxaysanaya gacmaha laga gooyay ay wax taraan su'aashaasi ayaad nooga jawaabi doontaan waxaad u qaban lahaydeen dadkaasi gacmaha laga gooyay iyagoo muusigooda ku raaxaysanaya falis baan ku horeynaya فلس واللحلة واحد جوابي رنهانتي dadka gacmaha laga gooyo ayagu muusigana ku raaxaysanaya runtii waxaan filaynaa inaan u qabanno showyo maaragtay charity show oo aan ugu tabarucayno lacagta showgaas aan ka qabanno dadka gacmaha laga gooyo ayagu muusigana ku raaxaysanaya ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa qof walba oo Soomaaliya oo dhibaataysan inuu caawiyo qofkii wax haysto oo wax ku dhaama haddii la caawiyo maaragtay qof walba qofka wuxuu ku dhaamo oo ku caawiyo dhibaatada iyo dhibta aan ku jirno waa laga baxayaa wadan walbana dib buu soo maray iyo dhibaato balse way gacmaha isqabsadeen oo maaragtay sheeg dhibaatada joojiyeen qaasatan dadka wariyaasha waxaan u sheegi lahaa inay maaragtay sheeg nabadda aad uga shaqeeyaan sababtoo ah sawirka qaldan ee ummadda tusayaan inay ka bedelaan oo ay ka tusaan meeshii sawir qaldan ay tusi lahaayeen sawir fiican waxbarasho in dalka horumar gaaray in dawladda lala shaqeeyo in ummadda maaragtay sheeg haddii ay arkaan qof argagixisa ama isqarxinayo ay ka daba ordaan ay soo qabtaan maaragtay halkaas ayaa nabad lagu gaari karaa iyo horumar inta kalena waxaan doonayaa Felis taas haddii aan ku darsado annaga waxaa igu sii darneed annagoo isla markaa shaqadii ka dhex wadnaa mashoogi baa mid gacan go-an intuu ii midaa wuxuu yidhi Felisee ka waran shalana fariic dilaan kugu raadinayo haddii aan ku qabto lacag fara badan baan heli lahaa maantana adaa ay aad baad u mahadsantahay Felis waa runtii waa fikrad runtii qallafsan weeyaan waana run weeyaan oo halkan Maxamed oo isna inagu soo darsanaya ra'yigiisa wuxuu yidhi حتى شالت ولا سيد أركيسين نحدين حقوق لك دعدي مجال بوسطن قرحي للبيك صدي دد أردي أو ماراثون كي وجوعان سنة مريان كأ إن دولة الصومالية أنا رنتي وحي هيسا هول آذو علوس وحينا يستاهلن بيري أو أهل البوجاديو أو الله شقيو يا النوم هاد عليا أيجونا يستاهلن بيري أو تاس ولمنتين تذكر الصومالية أردن وحيكو حرنتهاي إن أو نجاكو إن الله شقيو dawladda Soomaaliyeed oo la shaqeeyo hay'adaha amaanka oo la shaqeeyo qof walba oo dambi geysanaya sidaas ayay ku noqonaysaa meel xasilooni iyo nabad ku dambaysa wadanku waxa aan filayaa inta aynan barnaamijka soo gabagabayn waxa aan ku soo xirayaa Felis waan aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa sida aad nooga soo qayb qaadatay ma filayn inay kooxdaadii isku kooxda hay'adana kula fadhiyaan meesha
waxaan kaloo u mahad celinayaa lixle waxaan u mahad celinayaa digriyo waxaan u mahad celinayaa shiina akhyaar dhammaantiina sidaad arkayseen waxaa laydinka sugayaa meelo aad u fara badan oo adduunka ah iyo waddanka dhexdiisa waxaa sidoo kale lala fadhiyaa asagana oo kooxda waayaa cusub ka tirsan alfanaan burhaan fanaan burhaanna isagana salaan qaaliyaad iga gaadhsiinaysaan isagana dhammaantiinba runtii dadka inta badan magaca idinma kala saarsaaraan waxay idin yaqaanaan kooxda waayaha cusub taasaana ugu muhiimsan oo wax dadku ku farxaana oo koox isku duuban oo wada shaqaynaysa oo music fiican oo dadku ku raaxaystaan tumaya marka waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan siinayaa madasha falis oo aan leeyahay kelmaddii ugu dambeysay eed noo sheegi lahayd maxay noqon lahayd Before Abdi Halim, sorry, before Fali says something, please, there's somebody who really wants to ask a very pressing question. Okay. Yeah, can we take just one last question? hayo way waan idin haynaa waan idin fadhnaa halkan waad mahadsan tahay su-aashaasi weydiiya dadku waqtigu inaguma fillayn dabcan waxaan filaynaa mustaqbalka soo socdana inaynu samayno barnaamijyo intaa ka badan soo kusoo dhawaada aan la fadhiyo gabdho aada u fara badan oo laftigooda rabay inay su-aalo weydiiyaan inkasta aan taageerno in gabdhuhu iyo raggu semberi loo wada sinaado codkarnimada talada dalka iyo dib u dhiska maadaama ay yihiin 22 sana soo dhaafnay haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed kuwa badbaadiyay aadanaha kusoo dhawaada gabdhaha Soomaaliyeed aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay boggayaga internetka ee USDOT Soomaali ayaad ka helaysaan horumarka sawirada soo geliya waxyaabaha faraha badan ee rabtaan kusoo dhawaada madasha Okay, Hassan. Okay, waa Hassan oo hadlaya waad maasantiin dhalinyarada waayaha cusub waayo waanu telefishinkan ka arki jiray laakiin weli lama kulmin waana mahad laakiin aniga waxaan rabaa inaan ogaado laba kelmood oo ah waxaan sidaan ognahay wadanka Soomaaliya 22 sano dawlad kama jirin sidii haddaan maqlinin waxa weeye dhalinyaro badan ayaa maaragtay waxaan maqlay maaragtay in waxyaalaha Suudaan marka waxaan weydiin rabay dhalinyarada waayaha cusub weli dawladda Soomaaliya ahaata ama hay'adaha samafalka hadana ma kala tashateen si ay ugu suubiyaan dhalinyaradaas waxa la dhahaa guiding and counseling center si maaragtay wacyigelinta meesha ka wadaan guiding and counseling center arrinta kale inaan ogaadaan rabo waxa waaye aniga nin Soomaaliyan ahay laakiin weligay Soomaaliya maan arkin so sideed igana dhicin kartaa haddii inaan Muqdisho aadaan rabin sideed igana dhicin kartaa oo diidi kartaa Muqdisho waa meel labad oo la tagi karo inta aanu su-aashaad aynaan uga jawaabin waxaan ku darsanayaa ninka dhalinyarta ah aan leeyahay aniga lafteedu Soomaaliya muddo dheer baan ka soo maqnaa labadeena israaci doona baan leeyahay insha Allah ninka dhalinyarka walaalkeen aad u mahadsan yahay su-aashii hore oo ah wacyigelinta makaratista dawladaha ama waxay ahayd adigoo iga raali guiding and counseling center dhalinyaradii Soomaaliyeed ma loo abuuray ha ahaato kaas mid dawladda dhistay ama mid hay'adaha samafalka maaragtay ku caawiyeen Guiding and counseling center. laakiin ani runtii muhiimada waxaan u faanay dadku waxa weeye in dhalinyaradu doorkooda ay qaataan madaxweynaha Soomaaliya khudbadiisa ugu horreysay waxa kamid ah dalka Soomaaliya annaga yaan ku hadleen qof walba doorkiisa ha qaato qof walba oo Soomaaliya gabar iyo wiil doorkooda qaata waayaa cusub waxaanu bilownay xamarna aanu ka sameeyay waxa la open mic oo magaalada Muqdisho aanu isku keenay in ka badan 70 gabdhood iyo 60 oo runtii xafladaha anaga waaweyn ka dhaxaysi ama ka dhaxalay taas macnaheedu waxa ahayd in aanu sameeyno in dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalo walba ay joogaan iyo degmo walba ay joogaan inay la abuuro kuwa markaas deegaanka ah oo hawshiisii wada ama fariintii ay gelinta gaarsiiyo taas waa doorkanaga mar ay Ingiriiska tahay waxaanu dhalinyaro joogto waxaan la sameeyay al-shabaab dadka looga wacyigelinayo taas macnaheedu waxa weeye in meel walba dhalinyarada ku dhaqan la dhiirigeliyo la taageero si fariintii iyo nabadii iyo wacyigelintii ay u sii wadaan doorkanaga waa intaas waan uga mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliya ama hay'adaha caalamka ama dawladaha na taageera mar walba taageerada ay siiyaan dhalinyaradana ama doorka ay leeyihiin talabaad su'aasha kale Cabdi Xaliim baba ka jawaabay Muqdisho waa nabad waan tagnay welina waa nabad laakiin waxa u baahan tahay in dalkaaga aad tagtid aqoontaada iyo khibradaada iyo weliba habkii aad dhalinyarada Soomaaliya u dhiirigelin lahayd ula tagtid haddii xataa nabad ahayn waa mid laga rabo in adiga abuurtid ما هنا نقدر نقول هلا شيء دولار كسب هذيك نابو Another question, 2 more questions. هيا واي كسر دواده سؤاله
وارون محمد حسن وحنا كسعودة ورضا الكلمتي يوصل وهي هذا السلام يا الرجال أي كسر على ذا بخشوا يوميلا جلد على ذا أنت دليلنا ماشى في السنة وعيرب أي كلمة مرة بروك هاي سني الصومالي دو بدن هاي جعلنا يقولنا أول ذا ميلا فرقاتين الله جيابا إن معناها نسوي الجل معناها أروح لونسان دليلنا وعي جلد يا ومر بنا ودن كل نبض كوعي جليو حتى دليلنا كل ما تيجي عن وعي جليو إن معناها نسوي الجل وعي جلد قوة سيدي ذلك الصومالي معناها أيجنا وسجن هاي وسؤال عن يوسف حافظ كدور شان بقنا runtii isli waliba anagu aad u tiragelayna in dhalinyarada Soomaaliyeed xal qaantay xaruntooda aan tagno waxay shaqada qabanayaan aan aragno waxaan sidoo kale kala qayb galnay barnaamijyo ay sameeyeen oo isli ay ka sameeyeen runtii gargaar baa joog ka ah oo hadda kula fadhiyaba welina waanu aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed iska hashaasto la iscaawiyo goos waxa wada shaqeynayna waxa weeye in dadka naga iyo da'yartanada aan badbaadino oo aanu la mid noqono ama dhalinyarada ay la mid noqdaan dhalinta adduunka ku nool ee horumarka gaarsiisay waan kama celinaynaa diyaarna waxa uu nahay inaanu xafiisadina xarumo ku dhex yeelano in la shaqeyno nala shaqeysaan Soomaaliya waxa gacmo wada jiray ku gooyaan runtii anagu microphone baan haynaa adikuna activities kale oo fara badan haysaa laakiin waxa qaba aad baan ku faraxsanahay shaqada qabanaysaan welina waanu jecelnahay in xafiiskiina mar walba aanu soo booqano waxa aad qabanaysaan in la sheer gareyno safarada madalka ku tageynayna aad qayb ka noqotaan si aad dalkiina wax ugu qabataan amaastii wali waxa raasana ala ugu dasray gudoomiye waya cusub waxa la asaasay 2004 marka asaasiyay wax saacidaad ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku tirmaan arkin waxa anagu asaasnay waxa in ummadda Soomaaliyeed ku saacidno mikrofoonka oo ah mar walba u adeegaha bulshada una hadla qofka miskiinka dulman waya cusub ilaa intaas baa soo shaqeynay waa taan argagixisada la dagaalanay qabiilayaasha la dagaalanay AIDS-ka ka hortagay dadka AIDS-ka inay markiiba ilaaliyaan tahriibku sidoo kale waxa ilaahay mahadiisa maanta إلى ويا عصب هان على يرصه ماليده يسوي شيء ويا عصب وكره هذا الديار وين ودك يقول عطار نبضك شغال ويا عصب واحد ديارنا هنا سود وين قفل بق معادل صوماليين أو فكرتي أنا يشلع أساس لهذا اللقب إنه ودك يدب ولاته أنا كل حين وحش شروطه برنامج الباقي قبل يسين ويا عصب يقرب تجينا ولا نشغل نسوي نحسب دي لهنا. Thank you very much. One last question. وسؤال شو قدام بيسويان خصوصا هذا. The last question. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما سنتين مجاعي على النهار أصحاب ويا أسود ما صار دام عندك خرنا في تماركين حقق مباركات كأنت تمشي على كتير تودد أنا مبلينا يعني هاي ذكر لك مجاعي ولا مغلي نور سؤال برهينا ويجي لكن سؤال ويجينا ذكر خط كتير من هرجس سؤال يواوي مثل هالكي ويجي ما ليش أنا أعرف ويجي أنا أعرف يا أسود كل ويجي بمرتاي لكن لا تو 91 دقيقة لكن هذا ما دقيقة واسكتي. because waxaan ka sodaya in qof Soomaaliyeed waxa ku maamada ana afxadir waxa oo ay raadiya soo buuso daabjidaas ka maamada macnaha waxay ninka markuu qadayo quraacdo uu beerta fari karaa bes laakiin ma bahaysiba wixii fursad ay ku dhageysan lahaa siyaanaski wixii ما وعي قلتي ويسكي ما وده يسين كريم because of حوالي الرباط القصرية كي قاضي أمور على أنا opportunity أو إذا كان because هذه ما تصدق أرقام مالك كذا يوترين كريم بروح شقيسين كلام لكن كاميري أنا واحد على عين ما برحبه كان الموسيقى تجيسه كرحنا هالسمينين ما واحد سمينا معها لكن أنا فصلت معنا لسمين كريم متى so أنا opportunity أو وعي قليل كلامي كتير أو الموسيقى دي حسنا هيل in can generation lagu abuuri karo opportunity dadka fayga waxaan kula qaybsan kartaa because I don't have an opportunity to attend the class ana wax farsamada kale aan ka fahmay malaha gaajir way haysaa leena baro qaato xabbi tirdo oo opportunity soo dadsan iga fiican markii xal so opportunity you have another okay lika walaalka dhalinyarada Soomaaliyeed aad u baasiyahay laakiin waa su'aal fiican الوعي عصب حد يفيد الحساس شكل from 2008 2009 مركب واحد كم معناته 2008 2009 أنتوا بدي حساب الإكسريد وها عنده يجد كنت بيا قاعد يقول تدري أوكي كم ترى أنا كسر على وعيها عصب وهي سير أمة الصوماليات مالو بيجوجان ويكحريه الوعي قريب
macnaheeda ma ahan inaa qof walbo Soomaali ilaa gurigiisa daa ugu tago CD u galo dhaqan kale dhageyso waayaa cusub waxay aad ula shaqeeyaan meediyaha hadii la qoleeyo website hadii la qoleeyo telefishinada Soomaalida hadii la qoleeyo radio FM-ka waxa soo gudbino iyo heesaha qornana ama wacyigelin ummadda Soomaaliyeed ku saabsan barta soo gudbina si toos barta internet-ka lagu soo dhigaa ama qof direction hal dhageysto ama qof baa hal dhageysto ama qof dhibaataysan laakiin muhiimadda waxa message-keenu inuu gaaro qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed meesha joogo dad baaba heesiriba meel ay u shaqo tagaan alxamdulillah adiga waa haysto meel aan shaqo aado shaqadii waxa cuntaa haystaa dad baa duurka uu geelina oo maarta taaganahay war wacyigelinta qaato iska daayo duurka ay gaajada ka soo baxo umadiina dhaxda ka raaco wadanka hooyo Soomaaliya hal dhisto jooji waxaana ku heesir maartay wariyaa dilaysiyaal ku jahaalaysiyaal ka jahaalaysa adiga waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin dhammaantiin ba waqtigiiba hadda inagu soo simay aan nagu soo simin laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu waqtigu inagu sima inaynu sii wadno ugu dambeyntii kooxda waayaha cusub iyagoo wada fadhiyo oo aanan filaynin maanta wada joogaan heesta calanka Soomaaliya ee la yiraahdo Soomaaliya tooso isku tiirsada ee hadba kiina taag daran taageera weligiina waxay ahayd dad u halgamay wadanka ayaa soo sameeyay sidaad la socotaana ururadii dhalinyarta ee SYL waxay ahaayeen 13 dhalinyaro ayaa taariikhda bedelay 1943 qof walba oo Soomaaliyeena maanta wuxuu ka qaadan karaa qaybtiisa inuu Soomaaliya wax weyn ka qabto oo aan dawladda ama qof lagu deynin marka kooxda oo wada siman waxaan jeclaan lahaa si yaro degdeg ah inay heestaasi noogu heestaan codkiinana aan ku raaxaysano maanta oo dhan wada hadlayseen walaal aad u maasanta heesas وهيست قرش مدة صوماليات لكن waxaan jeclaan lahayn inaan maaragtay hees kale oo waayaa cusub anaga astaan loo ah message weyn noo xabaartayna barnaamijka ku soo gudbino ah dhibaatada waa la iska dhaafaa waa run weeye ku soo dhawaada inta aan barnaamijka soo xirin dhibaatada waa la iska dhaafaa dadkaaga loo dhintaa dhulkaaga la fiirsada dhaxda waa loo xirtaa dhibaatada waa la iska dhaafaa dadkaaga loo dhintaa dhulkaaga la fiirsada dhaxda waa loo xirtaa aad baad u mahadsantihiin anigaaba taa heesi gaadhay maanta aniga oo aan weligay heesin muddo dheer aad baad u mahadsantihiin dadka nagala xiriiraya barta internetka waxaan aad u salaamayaa fanaanada waayaha cusub ee caanka ah Falis Cabdi Maxamuud Shiina Akhyaar waxaan salaamayaa Lixle waxaan salaamayaa Digriyo waxaan salaamayaa Burhaan waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee nagula jira khadka barta internetka iyo telefoonkaba inta aynu mar dambe kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo waxa kale oo salaamaya iyaguna dadka barta internetka nagula jira kamid yahay Maxamed Xasan iyo Maxamed Ismaaciil iyo Maxamed Yuusuf oo ah dhalinyarta Turkiga wax ka barta ee Soomaaliya wax u soo baranayso oo aan filayno inay wadanka wax weyn ka bedeli doonaan inta aynu kulmi doono kulan dambe iyo qof dambe oo waraysan doono dhamaantii waxaan kaga tagaynaa anagoo salaamayna oo u soo gudbinayno mahad gaara safaaradayada aan ku leenahay magaalada Nairobi waliba Kaltuum iyo kooxda la shaqeysa halkana waxaan aad uga salaamayaa dadka nagala shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo stuudiyahan kala soo hadlayno sida ay nabadgeliyo iyo kulanti dambe. This program has been brought to you by Kinex.